albaabka markaad ka gasho waxaad u tagaysaa dad aan xorriyadooda haysan ee lagu soo kala eedeeyay dambiyo kala duwan. qoysaskooda ayaa soo booqda maxaabiistan isbuucii 2 jeer. kuwa caruurta lehna awlaadooda ayaa loo keenaa si ay isku arkaan. halkan waa barxadda weyn oo ay ku sheekaystaan, kuna ciyaaraan, kuna cunteeyaan maxaabiista. kamana foga qolalka ay ku nool yihiin ee deegaankooda uu yahay. waxaan gudaha u galay dhowr qol oo aan soo indheeyay. dabcan waxaa aad u badan tirada qol wada seexata iyo waliba nifaaska qolka oo aan isku dheelitirnayn. laakiin waxaa loo dhigay marwaaxado iyo telefishin ay kala socdaan akhbaaraadka gudaha iyo caalamka. waa mid ka mid ah qolalka maxaabiistu ay ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. ilaa 40 sariir ayaa ku jirta oo isisaar ah oo loogu talagalay in maxaabiistu halkan ay seexdaan. waxay haystaan adeegyada caadiga ah sida qaboojiyaal, telefishin ay wararka kala socdaan. laakiin maxaabiista halkan waxa ka maqan oo kaliya xorriyadooda. waana kuwa sugaya inay dhameystaan amba ay helaan cafis xilligii xabsigooda uu ku ekaa. alxamdulillah ilaahay maadiisa waa meeshaan ku noolnahay, sariiraheena iyo xaaladeena iyo macluumaadkeena. waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryeynaa in intaan ka badan aan heli doono insha Allah. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dadkii hawshan ka soo shaqeeyay ilaa heerkan soo gaarsiiyay. kulli xabsiga dhex waa la yaqaanaa ama gaal shira wax loo aqooni jiray wixii ahaan jirtay iyo wixii maanta tahay inay kalsooni imaaday oo maanta yani in la soo dhaxgalo saraakiishii iyo maxaa la dhahaa maxaabiistii si kalsooni leh in la soo weedaarsado maxaa la dhahaa howlihii iyo xabsigii iyo xaaladiisa ayadoo meesha ka baxday kalsooni daradii iyo hebel qofkan waa maxbuus ama aan loola macaamilin qaab si kala ah ama qaab kalsooni dara. alxamdulillah anagna taas waxayna siisay inaan maxaa la dhahaa ayagana hoostan ka galno, isfahanno, isku kalsoonaano, aan ka wada shaqeyno dhammaan wax kasta oo markaa jeclaan karaan waajibaadka ayaga saaran. marka insha Allah waxaan codsanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo kulley dadka mas'uuliyiinta ah ugu horeeya madaxweynaha inta ka hooseysa dhammaantooda in arrinkan dib loo fiiriyo maxaabiistii. alxamdulillah noloshooda maanta haddii maanta jireed nolol xumo waan sheegi lahayn waxaan qaranayn ma jirto, laakiin nolosheena way fiican tahay. xaalkeeni maanta jiifkeen intaba waa arkaysaan, laakiin waxaa naga maqan waxa qof kasta maanta ku taami karo oo ama waalid ah ama wiil ah. waxaan leenahay hooyooyin, xaasas, waalidiin, walaalo, dhammaan ehelo. marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in laga farxiyo waalidiinteena kurbada hayso, murugta hayso, wiilashoodii oo maqan oo ku dhex maqan Soomaaliya dhexdeeda. marka waxaan codsanaynaa insha Allah barnaamijkaas si gaar in loo fiiriyo, guddi gaar in loo diro. taliyaha xabsiga dhexe sareeye guuto Maxamed Sheekh Cumar Xirsiile ayaa iiga waramaya taariikhda xabsiga dhexe iyo waliba maxaabiista ku xiran tiradooda. xabsigan wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo tiro badan. waxaa jiri jirtay in askariga iyo maxbuuska aysan is-salaamin, isu imaanin, is-aqoonin. xagga isdhexgalkana indhihiina ku soo aragteen in maanta qolkii maadharradu ay ku jireen bartankiisa intaan idin geeyey ayadoo laga cabsanayo aad ku soo warranteen. nolosha aad aragtay oo ka jirta xabsiga 2 sano ka hor ma jirin. 2daas sano inta ah taliyaheenna ilaahay raalli ha ka ahaado asaga ayaa sabab u ahaa qaabka waxbarasho ood aragteen, qaabka jiifka ood aragteen, dhalooyinka ku jira, ciyaaraha fikraddiisii oon annaguna garab siinay unbay ahayd. marka xabsigaani wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan. tirada ku xiran waa tiro 1000 kor u dhaafaysa, lama sugo, tiro sugan lama dhiibo. waa 1000 qofooday kor uga badan yihiin. dhakhtarkii waad arkaysaa haddeer ka soo baxay qurbaawi ah asaguna oo daaweynayey maantadaas fadhiyuu ku jiray. sectionada 5 section waaye, 5taba wuu maray. dhakhtar kalea ku sii jira hadda oo gudaha ku jira. daawadooda waa haystaan, ilaahay mahadiis waaye qofkii jiran iyo ayagaba. muddo yar ka hor xabsiyadeenu ma lahayn jiif, ma lahayn dhulkii dadku seexanayeen. waxaa ka jira ciriiri badan, waxaa ka jira biyo yari. ka hadlimaynaba markaas wixii intaas waxaa ka jiray raashin xumo. ka hadlimayna marka wixii horumar waxbarasho iyo farsamo iyo hadiiba waxyaabihii beeska ahaa jiifkii iyo biyihii iyo
muxuu adeegyadii caafimaad wixii yani asaasiga ahaba disan jirin wixii horumar ah inaan laga hadli karin waa dareemi kartaan. marka annagoo la kaashanayna shacabkeenna waxaan ku guuleysanay inaanu qayb dhan oo xabsiga la oran jiray Biomondo ama xabsiga lagu hayay garsooyaasha oo totally dhulka galay 200 kun in lagu dhiso oo muxsiniin Soomaaliya haddaan carabka ku dhaftana mu'asasada Sheekh Macali Nuur inay fangarayso oo maalgeliso. maanta itana 500 in ku dhow oo maxaabiis ah ay ku jiraan oo zaxmadii ama ciriirigii aan sina yani loo fasiri karin ee ka jiray xabsiga dhexe lagu fududeeyay oo lagu kala qaaday. intaas kuma aanan sii ekeen misna waxaan inay okay qofkii raashinkoodii baa la hagaajiyay 3 waqti ayay wax cunaan oo cunno fiican ay cunaan alxamdulillah. yani ma dhahayno yani waa extravaganza laakiin cunno qof aadanaha ku noolaan karo quraac iyo qada iyo casha. waxaa loo Soomaalidu waa hilba jeceshay maalin kastoo jimca geel baa loo qalaa maalin kastoo jimca geel baa loo qalaa. marka halkaas marka raashinkooda waad arkaysaa haddaad arki yani masuuradooda hore qaarkood ama iyaga la sheekaysato siday hadda yihiin iyo siday ahaayeen aad bay u kala duwanta. adeega caafimaadkaan bilownay dhakhaatiir baan qornay oo maaragtay dhakhaatiir waayo araga ayaanu qornay oo ciidanka asluubta noqday oo ka shaqeeya caafimaadkooda iyadoo dhinaca kalena isbitaalka Kaysanay ururka bisha cas Soomaaliyeed oo maamulo gacan weyn naga siiyaan xagga caafimaadka. waxaa sidoo kale uu ahaa shakhsigii bilaabay in maxaabiistu ay helaan adeegyada ay haystaan maxaabiista ku xiran xabsiyada wadamada horumaray. qolalka ay jiiftaan qol kasta waxaan u gelinay marwaxado maadaama magaalada caasimaddu marar badan kulushahay marwaxado qabow baa loo geliyay telefishinna loo geliyay ay caalamka iyo akhbaarta iyo waxa jira kala socdaan. waxa fiicnaan lahayd inaad timaadaan markii World Cup ku socday ama kubadda cagta adduunka oo leedahay meesha maxaa ka socda yani waxa sawaxan iyo taageere iyo keeriso yani sida wiilasha la facaaho ku nool iyo gabdhaha oo magaalada jooga kale inay yani maartay xorriyadii hawaayo qofku laakiin aadanimadii inuusan waayin naxariistii inuusan waayin. waxaan gudaha u galay qaybta ay ku xiran yihiin dumarka maxaabiista ah oo la ii sheegay inay iyaguna dambiyo kala duwan loo soo xiray kamana marna ka faa'iideysiga xilliga ay xabsiga ku jiraan maadaama adeegyada waxbarasho iyo fursadaha farsamo ay qayb ka yihiin. waxaana ii waramaysaa mid ka mid ah maxaabiista dumarkaahi. waxaan ka mid ahay dumarka ku xiran xabsiga dhexe waxaana ku xukumanahay 10 sano xariga. hadda waxaan xiranahay 2 sano iyo bar. waxaan la igu soo iideeyay kees al-shabaabnimo. waxyaalaha inta aan ka faa'iido ka bartay waxaa ka mid ah harqaan tolidda. waxyaalaha aan tolo waxaa ka mid ah uniformkan aan hadda sitoo kale saraawiisha shaararka cabaayadaha goonooyinka fudashaariga waxaas oo dhan waan tolnay duruucda intaas oo dhan caruur iyo rag iyo dumar intaba waan u tolnay. waxaan rajaynayaa inta haddaan ka baxo farsamada inta aan ku bartay inaan ku shaqaysto inta aan xiranahay oo ilaahay ii qadaray inta inaan sii joogan gabdhaha walaalahii inta ku xiran inaan u sii faa'iideeyo intii aan bartay taasaan rajaynayaa. xabsiga dhexe iyo xabsiga garsugayaasha labadaba iskoolaan ka dhisnay subaxii ay iskool aadaan labadaba waxaan ka dhisnay masaajidyo 2 masaajid baa ku yaala oo lagu barto diinta islaamka lagu baro quraanka lagu baro lagu xifdisiyo diinta lagu baro siirada lagu baro tafsiirka lagu baro muxuu ahaa yani halkaasna yani si muxuu ahaa isbedel ruuxi ah oo qalbi ah loogu sameeyo oo la baro dadka diinteena dhabta ah diinteena amniga ah diinteena suuban inay ku bartaan meesha oo halkaas ay ku arkaan dunuubta ay soo galeen noocu raba ahaado mid argagixisaha soo galo mid burcadnimaha soo galo tuugnimaha soo galo truufa ama qiyaamaha soo maro diintu waxay ka qabto iyo islaamnimadiisa. marka halkaasna waxaa kaloo socda marka iyagana iskoollo aan u kala saarnay darajooyin dugsi farbarad dugsi dhexe dugsi sare. waxaanu hadda waa hadal la wadna oo aanu rajeynayna mar inay bilaabto intooda heer jaamacadeed gaaray jaamacadooda inay meesha ku qaataan. xabsiyada caalamka baryahan dambe waxaa loo bedelay goobo dhaqan celin iyo goobo waxbarasho. xabsiga dhexe ee Xamar waxaa ku yaala dugsi waxbarasho
oo ay si joogto ah u galaan maxaabiista si duruusta caadiga ah ay u qaataan. Galaaskan waa galaaskii shanaad, waa galaaska u sida galaas ku xigo waaye. Ardaydan muddo aan isla joognaa. Hadda waxaan u dhigay aniga laba maado, waa maadada Englishka iyo maadada Science-ka. Marka fahamkooda waa arday aad u fiican waaye. Waa inkastoo iskugu jiraan laakiin dad waxaa waaye oo collective macnaha oo cooperation ka dhexeeya markasta casharada isla akhriso, isku qolol degan, isku meel degan. taas ayaa saacidaysa marka inay casharada qofka liita iyo qofka fiican ay xogaa isgarabsadaan. Marka fahamkooduna aad u fiican yahay. Dawladdu waxa ay ku guuleysatay inay xabsiyada dibadda ka soo deyso maxaabiista Soomaalida ku rafaadsan wadamada caalamka sida India, Seychelles, Libya iyo dalka Ethiopia. boqolaal maxbuus ayaa dalka dib loogu soo celiyay tan iyo bartamihii sanadkii hore 2017. Haddaba maxaabiistan ayaa loo sameeyay xirfado shaqo oo ay ku shaqaystaan, taas oo anfici karta inay nolol maalmoodkooda iyo mustaqbal shaqaba ay u noqoto. waxaanu abuurnay xaruntii tababarka iyo wax soo saarka farsamada gacanta iyo wax soo saarka, taasoo maantay dhowr disibliin leh oo lagu baro najaaradda. waxaad soo arki doontaan ama soo aragteen miisas iyo sariiro iyo qalab xafiiseed iyo qalab guryaha ay sameeyeen. waxaan rabnaa inaan soo celino insha allah sida waagii la oran jiray gabdhaheenu markay gursanayeen, haddaan qalabka asluubta noloo keeno guri geli mayno. mar dhow insha allah dariiqaas inay qaadataan jecelna. waxaa jira muxuu ahaa aluminiumka oo farsamo casri hadda dalku albaabadan aad ujeedo hadda ku dhegan xafiiskayga oo muraayada iyo dirashadaha kulli ayagaa sameeyey, meeshaa lagu sameeyey. waxaa la sameynayaa muxuu ahaa alxankii. waxaad soo aragteen waxa sariiro banaanka duuban. hadda sariiraha soo aragteen faraha badan waxaa loo sameeyey ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa loo sameeyey. waxay sameeyaan hadda tababarka ciidamada dhan qoryahan looxa ah oo waa qoriyo markaad aragto laakiin xabada ka dhici mayso. halkaan baan ku sameyn maxaabiistaa sameynaysa markaanu macallimiin iyo khubaro ciidanka ah oo saraakiil loo dhiibay. waxay sameynayaan muxuu ahaa dhismihii, rinjiintii, dabkii, korontadii, makaanigiintii, dhartolidii. yani waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin disibliinada la baro maxaabiista oo hadda ka socda xarunta tababarka iyo wax soo saarka ciidanka. waxay soo saaraan waxaan u furnay hadda iyagoo xabsiga ku jira account-aan u furnay, bank account-aan u furnay ama xisaab socota ee bangiyada ayaan qaarkood u furnay kuwa farsamada ka shaqeynaya, si haddii lacag timaado akoonkiisa loogu shubo. haddii ay badato markay shaqadu badato oo wax soo saarka badato, waxaan ku talagalnay lacagta asaga la siinayo akoonka heshiis waxaan kula galnay inaan la saxiixayno intuu xabsiga ku jiro. maxaa waxaan doonaynaa wixii uu ku yimid meesha iyo dunuubtii, hadduu daraag ahayd, hadday burcadnimo waxay noqotaba, hadday argagixis ahayd, inuusan wixii iyo wax lamid ah ku kharash garayn. hase yeeshee uu ku kharash gareeyo qoyskiisa, caruurtiisa, asaguna kayd helo oo hadhowto markuu xabsiga ka baxo wuxuu qabsan karo. halkan waa warshad ku dhex taala xabsiga dhexe oo qaybo kala duwan leh. qaybtan aan ku jiro waa qaybta alxanka ee warshadda weyn ee ku taala xabsiga dhexe. maxaabiista halkan ka shaqeysa ee farsamada kala duwan halkan ka haysa waa kuwo isugu jira kuwa laga keenay jasiiradda Seychelles iyo kuwa laga soo xiray dalka gudihiisa. Bashiir oo iga dambeeya waxa 5 sano xabsigiisa uu ku soo dhameystay jasiiradda Seychelles, waxaana halkan ugu jira in uu dhameysto inta uu hartay xabsigiisa. dabcan waxa uu iga waramayaa bal marxaladii uu soo kala maray markii uu ku xirnaa jasiiraddaasi iyo marka halkan uu joogo. Seychelles waxaan ku xiraa muddo adugu taqriiban 5 sano ayaan ku xiraa. dambiga lagu soo eedeeyay wuxuu ahaa dambi muxuu ahaa virusnimo lagu eedeeyay. waa hadda adduunka oo dhan macnaha ka jirta dadka meel walba ay joogaan in lagu dulmiyo haddii macnaha dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan saas looga dulmiyo waa wax iska caadi noqday way sanadii dambe la soo dhaafay. runtii laba farqi ayaa u dhaxeeya marka aad iga wareysato xabsigaas iyo xabsigan.
difference weyn baa u dhexeeya difference weyn u dhexeeya waxa weeye marka koobaad ciidaadi ma joogtid eelkaadi arki maysid waa dulman tahay dhan waliba waa ka dulman tahay haddii xakun ay tahay iyo haddii muxuu ahaa xorriyad darre ay tahay intaba meel waliba waad ka dulman tahay kolkaa dal shay aad ku xiranto laakiin markaad ciiddaada hooyo timaado waxaad dareemaysaa farxad iyo waxyaabo fara badan oo kaa maqnaa oo intii xabsiga ay ku jirtay aadan ku heli karin ayaad dareemaysaa waxaa ka mid a halkaa maalinta aanu nimi waxaan dareennay waxay tahay dowladnimadu iyo muxuu ahaa soomaalinimadu iyo wadannimadu waxa ay taan dareennay maalinta airborka laga soo dejiyo anigu waanba iska ooyeyba waxaan la ooyey farxadda iyo quruxda iyo muxuu ahaa haybadda dalkeenna uu leeyahay iyo barwaaqanimada iyo muxuu ahaa dowladnimadu waxay tahay baan la ooyey sidaas laajligeed kolkii halkaa laga keenayna muddo waxaan taagnaa ciidda ayaan taagnaa si macnaha aan xamuumtii macnaha ama xiisihii aan u qabay si xoogaa aan u dareemo eheladayda waan is aragnay waa noo yimaadeen maasha allah anytime waan is aragnaa waxaa runta juhdi badan iyo dadaal fara badan lagu bixiyey dowladda tan nabad iyo nolol oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu hogaaminayo runtii dadaallo fara badan baa nala ku soo bixiyey innaga kaliya ma aanan hayn de waad ogtihiin qoladii hindiya ku dhibaataysnayd muxuu ahaa etoobiya qolaa ku dhibaataysnayd muxuu ahaa daafaha caalamka qolo kalaa ku dhibaataysnayd marka sidaa ay tahay dadaallo fara badan ka bacdi dadkii in la soo daayey iyo in la keenay inta ay wada noqdeen alxamdulillah annaguna waxaan nasiib u yeelanay dadkii dibadaha laga keenay inaan ka mid noqonno annagoo aad iyo aad ugu faraxsan weliba intaa waxaa sii dheereed muddo 3 sana ayaan waxaan ka codsanaynay UN-ka waxaanu lahayn dalka iyaga dib hana loogu celiyo iyana waxay yiraahdeen dawlad aan idinku aaminaba dalkiina kama jirto waxay sameeyeen sariiraha loogu talagalay inay ku seexdaan maxaabiista oo ay noocyada isdulsaarka ahi sidoo kalena ganjeelooyinka iyo daaqadaha guryaha kuwaas oo loo iibgeeyo suuqyada si loogu soo bedelo agab kale oo ay ku bartaan farsamada gacanta waxaa sidoo kale ay sameeyeen alaabaha guryaha la dhigto sida jiifafka iyo fadhiyada oo si heer sare ah loo soo farsameeyey waxaa qaybtan horjooge u ah wiilkan dhalinyarada ah oo isaguba ka mid ahaa dhalinyaradii laga soo saaray xabsiga jasiiradda Seychelles waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga keenay 2017 bishii December 17 aniga wadankayga hooyo imid waxaan ka maqnaa 6 sano iyo waxaan ka maqnaa 2 bilood oo aan ku xirnaa wadanka la yiraahdo muxuu ahaa Seychelles muxuu ahaa horta marka horta xukuumadda Soomaaliya horta waa u mahad celinayaa maadaamay wadankayga hooyo oo muddo dheer aan ka maqnaa ay keentay laakiin muxuu ahaa waxaan jeclaan lahaa maadaama aan nahay dhalinyaro muxuu ahaa in badan xirnayd in dowladdeena muxuu ahaa Soomaaliya ay magaranaysaa xorriyaddeeda dib ay nagu soo celiso annagu waxaan nahay 65 nin Somaliland Puntland labada maamul iyo xabsiga dhexe ee Muqdisho baan ku xiranahay 65 teen midda labaad xabsiga dhexe markaa imid aad iyo aad ma ugu farxay hooyaday baa igu timid gabdho walaalahay ayaa igu yimid afar ciyaal wato ayagoo inama igu dambeysay kana aad iyo aad ma ugu faraxsanahay midda labaad xabsiga dhexe waxaan ka helnay waxbarasho baan ka helnay hadda saa u jeedo waxaas oo fadhiyaala kullu inaga sameynay waxaana jeclahay macaa markii xabsiga aan ka baxo in aan ku shaqaysto farsamadan aan bartay wax soo saarka warshada xabsiga dhexe ayaa ka faa'iideystaan ciidamada xildhibaanada iyo madaxda kale ee qaran iyagoo alaabaha ka iibsada warshada si ay u dhiirigeliyaan farsamayaqaanada maxbuusta ahi wax soo saarka warshada xabsiga dhexe waxaa lagu soo bandhigaa carwadan hadda aan ku jiro dabcan kuraastan aan ku fadhiyana waxaa la ii sheegay in loo sameeyey xildhibaan dalxa oo runtii isagoo yimid halkan isla markaana noocan codsaday in ay u sameeyaan dhalinyarada maxaabiista halkan ku xiran xafiiska warfaafinta madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo uu ka socday agaasimaha warfaafinta Cabdinuur Axmed ayaa warshada uga dalbay miisas ay isticmaalaan xarunta murtida iyo madadaalada ee National Theatre taas oo aan maalintii goobjoog u ahaa kala wareejinta agab la guddoonsiiyey maareeyaha tiyaatarka Abwaan Guure waxaan maanta ku faraxsanahay in la ku wareejiyo oo madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska warfaafinta oo nagu wareejiyo alaab ay sameysay warshada ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay nooga fiican tahay alaabtan oo inooga qiimo badan tahay warshadaha adduunka ugu sareeyo kuwa lagu sameeyo midaan ayaa nooga qiimo badan oo nooga farxad badan alaabtan la ku wareejiyay waxa ku sawiran golihii murtida iyo wacyigelinta Soomaaliyeed
waxaana sameeyey dhallinyaro soomaaliyeed oo loo tababaray inay wax soo saaraan ayagoo haddii alla kuu roon yahay aan xorriyad haysan oo ku xidhan xabsiga dhexe aad ayaan uga mahad celinaynaa farsamadan quruxda badan iyo alaabtaan nala ku wareejiyey. maxaabiista qaar ayaa ah kuwa loo haysto lacago tiradoodu ay aad u badan tahay iskamana bixin karaan, laakiin waxaa la siiyey fursado ay kaga dhex shaqaystaan xabsiga si ay isaga bixiyaan magta loo haysto. waxaan la kulmay mid ka mid ah maxaabiista lacagaha loo haysto ee halkan ku xiran. خير الله سينا لا دهاي بشير محمد جامع كهنان بشير قوبه اي ده لعقت رجوليه وامسا طبعا كون شن كون انا بحنا شن كون سو شقيسو شن كون ادير اسائي هاي شغلان هدا ان ودا سريرها انا سميه بقول حبوا لح كون markii saas loo bandhigo waxa ka soo bixido $1 camal ka soo bixido biraha iyo kumsaad markii laga gado inaan saas u shaqeyso 5,000 kalena aniga aan soo saartaan diyaar ah. kabtan Suleymaan madaxa maamulka warshadaha ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ii waramaya. halkan sidaad arkayso waa xarunta farsamada iyo wax soo saarka ciidanka asluubta Soomaaliyeed waa qaybo badan ay leedahay sida indhaha ku soo aragtay qaybta aluminumka qaybta farshaxanka qaybta tolmada qaybta furniture-ka oo farsamo xaflada xafiisyada lagu sameeyo iyo qaybta alxanka. halkan wax ku barto oo teeramka sala keenaa maxaabiis oo qaybahaas kala duwan wax lagu baro hawa 6 bilood la baraa qofka markuu aqoontiisa active ay noqoto waxa waaye qolo kale oo 6 bilood kale la soo saaraa wali konton maxbuus soo xarooto maalinka 6 bilood oo boqol konton la baraa si xabsiga dadka ku xiran in la isku gaarsiiyo bas qofka maalin kasta ma joogi karo mugtahay hal tinta la keeno loo wada dhamay karo qolada kale wax barashay rabaan soo la wada baraa. waxa kale meeshan dadka markay xabsi maqlaan in la xireen kaliya aaminsan yihiin laakiin meeshan xabsiyada standardka oo hadda caalamka jira in la jaan qaaday qaarada Afrika qaasatan bariga Afrika waxa marka kala fiir xabsiyada ugu fiican ku jira wada aaminsanna. gaashaanle sare Cabdirashiid Cusmaan Culuw oo ah madaxa hoggaanka wacyigelinta iyo siyaasadda ayaa iiga waramay dib u soo kabashada warshada xabsiga dhexe oo uu dib u nooleeyay taliyaha ciidamada asluubta sareeye guud Generaal Bashiir. warshadan waxa kamid ah warshadii ku burburay qaranjabkii Soomaaliya ku dhacay ku burburtay laakiin hadda way soo kabatay waxay ku soo kabatay talada taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Kaynaan ayay ku soo kabatay sidaana ku noqotay ilaahay baa makaniyay inuu sidaan ka dhigo annaga dadkan kale ka shaqeynayna waa wakiiladiisii mas'uuliyiinta meesha joogta waa wakiiladiisii wakiil asagu baa u wakiishay sidaas baan lagu shaqeynayay warshadu hadda way dhameystiran tahay meel fiican ay maraysaa meelaha ugu fiican hadda maraysaa warshadaha oo wax soo saara warshada ugu fiican waa waxay soo saartana waad aragteen qaab walbay tahay xabsiga maxaabiista ku xiran haddii la isaga soo xiro xabsiga oo la iska soo dhex dhigo oo waqtiga ku dhammaystaan waxba faa'iidaha kama dhalanayaan taliyaha fikraddiisu taa wuu bedelay warshadan asaa abuuray maxaabiistu inay farsamo ku bartaan lagu dhaqan celiyo wax lagu baro hadhow ka soo baxa halkan qof xirfadla ah ninkii 2 sano la xiray sanadka hore hadduu xabsiga ku qaato sanadka dambana uu warshada farsamada ka barto asoo farsamo yaqaan oo koronto yaqaan ama asoo alxamiista ama asoo qoladan oo guryaha suubisa ah oo sida qalabka xafiisyada iyo guryaha suubisa najaarka la yiraahdo uu ka soo baxaya dawaar waa lagu baraa fikradaas fikrad taliyaha ka timid waaye runtii waa fikrad aad u fiican loo wada riyaaqay xabsiga dadka ku xiran lagu dhaqan celiya warshadan. sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Kaynaan Bashiir Goobe ayaa ah shakhsiga kaliya haysta darajada ugu sareysa ciidan waana markii labaad ee loo magacaabay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. waxa la ii sheegay inuu isbedel weyn ka sameeyay taliska ciidanka tan iyo markii uu yimid xafiiska. Bashiir oo aan xafiiskiisa kula kulmay ayaa iiga waramaya ciidanka asluubta iyo aasaaskoodii. ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa ciidan qaran oo kamid ah xubin kamid ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya
loo dhisay 1972 bishii February markaasoo ciidanku oo horey u ahaa ciidan xabsiyada kaliya ku kooban hase yeeshee aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida ayaa waqtigaas si rasmi ah loo go'aamiyey inuu noqdo ciidamada qalabka sida ka tirsanay Soomaaliya marka hadda muddo 42 sano ayuu gaaray sharciga uu ciidanku dhisan yahay wuxuu leeyahay waajibaad gaar u ah oo takhasusaad gaar u ah iyo waajibaad guud oo la wadaago ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ciidanku wuxuu mas'uul ka yahay ilaalinta iyo haynta iyo difaaca xabsiyada dalka iyo haynta maxaabiista dhinac xuduud ahaan intaas markii laga soo tago adduunku maanta waxa la gudbay waxa la yiraahdo xabsi adduunku waa dhaaf adduunka casriga waa gudbay ma jirto hadda laguma talagelin qof dambi uu galay in lagu ciqaabo waxaase lagu talagalay qofka dambi uu galay oo maxkamadu soo xukumin in la dhaqan celiyo marka magacii ahaa muxuu ahaa prisonska hadda waxaa loo bedelay corrections innaga nasiib wanaag ciidankeena marka la aasaasayba 1972 bishii February waxaa loo bixiyay ciidanka asluubta marka waxaad moodaa inaynu anagu ka horeynaba muxuu ahaa afkaartan cusub oo hadda ilaa iyo 12 sano ugu dambeeyay aasaasantay 40 sano ay la faactahay ay jirtaa magaceenu asluub oo inuusan ahayn ciidanku ciidan caburin inuusan ahayn ciidan xabsiyada dadka ku dhiba hase yeeshee ahaado ciidan asluub celiya dhaqan celiya waxbara taariikhda ciidankana waxaad ogtihiin inuu ahaa ciidanka ugu warshadaha badan muxuu ahaa hoggaan weyn oo dhismaha dalka ka qayb qaata ayuu lahaa wuxuu lahaa beero badan oo maxaabiis lagu dhaqan celiyo la siiyo loo qaybiyo hadhowna markay ka baxaan qaarkood iskaashatadii waayo arag oo kale oo muxuu ahaa beeraha waxa waayo aragaas lagu sheegaya waa dadka xabsiyada soo maray waxaana mas-uul ka ahaa oo mashaariicdaas fuliyey ciidanka asluubta Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu hadda ku jiraa reform ama dib u habeyn wuxuu ku jiraa dib u dhis wuxuu ku jiraa dib u kabasho waxaanu ilaahay mahadiisa iyo gacanta ay ka geysteen muxsiniinta Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed in badan oo kamid ah gaar ahaan ganacsatada u badan wuxuu gaaray muxuu ahaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed inuu dib u soo nooleeyo adeegyadii jiray oo horey oo xabsiyadu waagi hore ay u lahaayeen iyo qaar kaloo lagu sii darayba gudaha xabsiga dhexe ayaan booqday dabcan waxaan ku soo arkay waxyaabo aad u kala duwan markay noqoto dhanka deegaanka waxa uu la mid yahay ama uu u dhow yahay xabsiyada kale ee caalamka waayo maxaabiistu waxay haystaan meelihii ay seexan lahaayeen qaboojiyaashii telefishinkii ay warar kala socon lahaayeen iyo cunooyinkii laakiin dhismahan iga dambeeya waa dhismo duq ah derbiga jismigiisa markaad gudaha u gashid waa mid bolol ah oo aad u liita waxaana dhici karta dadka gudaha ku jira maadaama ay yihiin kuwo aad u badan waxaa laga yaabaa qolka ugu yar waxaa la sheegay inay degan yihiin amba ay sexdaan 40 qof halka qolalka qaarna ay ku jiraan in ka badan 100 maxaabiis ah dabcan waa dareemi kartaa intaasoo qof inay ku noolaadaan caafimaad ahaan iyo weliba deegaan ahaan waxa saamaynta ay ku leedahay dadka maxaabiista xabsigu horta waa aad buu u da'weyn waxaa la sheegaa in la dhisay casrigii Cismaaniyiinta oo Turkidu dhistay waa garan kartaan marka waxaa la ii sheegay inuu furmay 1903 marka horta aad buu xabsigu u facwan yahay taas marka waa mid waxaa marka la qorsheeyey oo dowladda u qorsheysan in wax laga bedelo oo xabsiya cusub oo casri ah la helo sida hadda aragtay xabsigan 50 60 40 70 ayaa meel ku wada xiran waa dhib aad u weyn waay
maadaama xabsiga dhexe ee xamar aynu soo aragnay waxa uu ahaa dhismo duq ah isla markaana aanay u fiicnayn deegaan ahaan iyo caafimaad ahaan halkan aan joogo dhismahan iga dambeeya ayaa ah dhismaha cusub ee xabsiga casriga ah ee loogu talagalay in lagu xiro maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee xamar xabsigan cusub ee qaybtiisii hore la dhammaystiray ayaa iminka diyaar u ah in la keeno maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe waxaana la adkeeyey ammaankiisa ciidanka ilaalada xabsigan cusub ayaa haysta meelo ay ku soo socdaan oo ay ku gaaf wareegi karaan gidaarka weyn ee xabsiga xeendaabka u ah waxaana loo sameeyey qaab casriyeysan iyadoo lagu rakibay kaamirooyinka loo yaqaano CCTV xabsigaas sidaad aragtay oo casriga ah wuxuu noqon doonaa xabsi ka casirsan qaaradda kuma yaalo Afrika labo wuxuu la mid yahay oo la tartamaya xabsiyada dalalka horumaray ee ku yaal sababaha soo socda kow qolka waxaa degaya ugu badnaan 6 qof niina ku soo aragteen 6 qof oo 6dooda sariirood مسؤولشودي قبيس كأيو محوها استعمال قدرون وله ميل أي وحكو أخرستان ماشي حداد أركتي حلوة تلقى نسبة إيمانية هالكاس ماشي وحكو أخرستان لها ينوا مركا وانين مارتي سريرتي سي وحقرتي مسؤولشودي اللي حقف قبضنا لما أقولين لقلن ميو سيدو أسميهين وأسمسين مارتي فنتيليشن كأما هو ذا السلوق هذا قبو يعني meel waxay noqonaysaa muxuu ahaa qofka xorriyadiisiiba waay maahan uu si maartay aadanimo ah karaamadiisa dadnimo iyo muslimnimo iyo soomaalinimo la ilaaliyay ugu noolaanayo xabsigan dhexe ee loo diyaariyey maxaabiista in halkan lagu xiro ayaa waxa uu yahay mid casri ah maadaama xabsiga dhexe uu yahay mid duqa isla markaana qolalkiisu ay ku xiran yihiin in ka badan 150 maxaabiis calaa qol ayaa kani waxa uu kaga duwan yahay midkii hore dabcan waxaa loogu talagalay maxaabiista in halkan lagu xiro calaa qol inay geli karto 6 maxbuus oo loo dhigo sariiro isasaar ah qolkan hadda aan ku jiro oo kale waxaa loogu talagalay in lagu xiro 6 maxbuus oo keliya oo 3 sariir oo isasaar ah halkan loo dhigo waxaana ka dhaxaysa hal suuli oo ay qaybsadaan 6dooda maadaama xabsigii hore ee xabsiga dhexe aynu aragnay 70 ilaa iyo 150 maxbuus ay ka dhaxaysay hal suuli maxaabiista ku jira qolalka halkan ku yaala oo aad u tiro badan ilaa iyo gees ayaa waxaa sidoo kale loo sameeyey meel ay ku waji dhaqdaan aroortii markii ay soo toosaan maadaama gudaha qolalka aysan lahayn meel lagu waji dhaqdo dabcan waxaa loo diyaariyey qaybtan in ay ku weysaystaan ku waji dhaqdaan ama ay ugu diyaar garoobaan maalintooda gaar ahaan marka ay quraacanayaan gudaha xabsigan cusub ayaa bilicdiisu aad ku soo jiidanaysa iyadoo uu leeyahay guryo ay seexdaan garsoorayaasha maxkamadeeya maxaabiista maadaama maxkamad caalami ah halkan laga hirgeliyey halkan aan taaganahay waa maxkamadda loogu talagalay xabsigan cusub in lagu maxkamadeeyo maxbuusta halkan ku xiran halka iga dambaysa waa meesha ay fadhiistaan garsoorayaasha maxkamadda dhanka bidixna waxaa halkan loogu talagalay inuu soo galo qofka maxbuuska ah ee dembiga loo haysto in ay ku qaadaan qaaliyaasha iga dambeeya sidoo kale dhanka midigna waxaa halkan istaagaya garyaqaanka difaacaya maxbuuska iyo markhaatiga dabcan maxkamaddan naftirkeedu waa mid heer caalami ah loo sameeyey lana mid ah maxkamadaha aanu ku soo aragnay dunida horumartay